Kulato wacan oo wanaagsan daawadayaal halka waa xogta dalka qodobada warkeena aad ku daawo doontaan waxaa ka mid noqon doona Xasan Sheekh Maxamuud, Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed oo heshiis lama filaan ah wada gaaray. Maxaase u dambeey doona kooxda madasha mucaaradka samata bixinta haddii Xasan Cali Kheyre iyo sidoo kale Shariif Sheekh Axmed ay ku biireen kooxda Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan kaloo warkeena ku soo qaadan doonaa daawadayaal haddii Rabbi qadaro Odawa Yuusuf Raage oo mar kale amar adag bixiyay muxuu yahay amarka uu bixiyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya warkeena ayaan ku soo qaadan doonaa. Waxaan kaloo warkeena idinku soo gudbin doonaa daawadayaal halkee buu ku dambeeyaa safarkii farmaajo ku imaan lahaa Muqdisho iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xaaladda adag ee dalka ka jirto. Ciidamada QRF ee laga aasaasay Puntland maxay yihiin warkeena ayaan ku soo qaadan doonaa. Waxaan kaloo warkeena idinku soo gudbin doonaa Siciidani lacagta malaayiinta ah ee uu ka faa'iidayo dowladda Imaaraadka Carabta ah iyo ciidanka QRF waxa uu kaga damacsan yahay inuu ku dhibaateeyo shacabka deegaanada maamulka Puntland. Wararkaas iyo warar kale oo xiiso badan ayaa ku daawo doontaan muuqaalkeena nagu soo biir oo nala joog oo daawo muuqaaladeena wararka ugu xiisaha badan ee xaalka siyaasadeed ee dalka janaalkeenana ku soo biir isla markaana muuqaalkan meel dheer gaarsii soo dhawaada markale saaxiibayaal. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale madaxweynaha hore ama ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Kheyre ayaa ku kulmay wadanka Djibouti. Waxaana kulankooda si weyn loogu lafaguray xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirto, go'aamada ay qaadanayaan, isbedelada iyo sidoo kale dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waqtiga kan sida loo taageerayo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo oo ka cabday Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Kheyre haddana waxaa si cad loogu sheegay in ay joojiyaan colaadinta ay ku hayaan madaxweynaha dalka isla markaana waqti la siiyo dowladdiisuna isbedelo wanaagsan ay sameyso. Kulankan ayaa ka dhacay guriga madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Umar Geele. Madaxweynaha wadanka Djibouti ayaa dhexdhexaadiyay shakhsiyaadkan waxaana Xasan Sheekh Maxamuud oo si weyn uu kaga hadlay xaaladda adag ee hadda haysato iyo tallaabooyinka mararka qaarkood ay qaadaan kooxda mucaaradka madasha samata bixinta. Waxay sheegay Xasan Sheekh Maxamuud inuusan marnaba u dulqaadanaynin inay colaadiyaan shakhsiyaad heebahan ay isku dhari yihiin isla markaana Dani iyo sidoo kale Axmed Madoobe oo isku dhari ah iyagana ay dhibaato ay ku hayaan. Intaasi kadib Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu isna ka hadlay aragtidiisa. Waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud ciidamo uu u soo diray isla markaana ay isku dayeen inay dilaan askari ka tirsan ilaaladiisa la dilay, taasina magteedu uu rabo. Tanna waxay u muuqanaysaa in xaaladda kala fogaanshaha xoogaa yar laga soo dhawaaday isla markaana isfahanka uu xoogaa yara soo roonaanayo. Dhinaca kale Shariif ayaa asna mikrafoon ka qaatay waxaana Ismaaciil Umar Geele u sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud oo dhiban u yahay isla markaana shakhsiyaad fara badan ay isku heeb yihiin la dilay, la xiray, hubkina laga qaatay, taasna uusan u dulqaadanaynin. Jaawareer cusub ayaa durbaba ka dhex bilowday kooxda madasha samata bixinta. Waayahooda hadda wuxuu u muuqanayaa in uu soo gabagaboobayo waayihii waqtigii wacnaa ee kooxda madasha samata bixinta ayaa laaluush isku bedelay maadaama Xasan Cali Kheyre, Shariif Sheekh Axmed lacag malaayiin ah loo ballan qaaday isla markaana ay isaga baxaan afaaraha Xasan Sheekh Maxamuud ayna taageeraan oo nacamleeyo u noqdaan. Tanna waxay ka dhigan tahay xaalka siyaasadeed ee dalka inuu isbedelay, taageerada Xasan Sheekh Maxamuudna ee hadda wajiyo badan ay yeelanayso. Waayahay dhinaca kalena daawadayaal QRF RSF walaalkood ayaa waxa laga sameynayaa deegaanada maamulka Puntland waaba laga sameeyayba. Tan waxay u muuqanaysaa in mar kale dhulka deegaanada maamulka Puntland xaalad adag la gelinayo. Dowladda Imaaraadka Carabtu Siciidani waxay siisay lacag malaayiin dollar ah koox caloosha u shaqaystayaal ah ayaa saacadihii la soo dhaafay laga dejinayay magaalada Boosaaso. Kooxdaas oo RSF garab siinaysay ciidamada ugu badan ee QRF waxaa la sheegay inay heeb ahaan ay aad ugu dhow yihiin Siciidani
shakhsiyaadka la soo xulay ayaa ah shakhsiyaad daroogada isticmaala manaxayaal ah wax jaxan aan aqoonin horeyna uga tirsanaan jiray ururka Daacish oo ah urur dhibaato badan u geystay shacabka Puntland waxaana KURF la tilmaamay in la geyn doono magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso Siciid Dani ayaa hadda bilaabay dhaqdhaqaaqiisii ugu adkaa oo KURF uu ku shaqo gelinayo waxaana ciidamadan KURF la yiraahdo ay durbaba ay bilaabayaan guluf aad u xoogan iyadoo taliyaha ciidanka booliska Puntland uu horey u sheegay in ciidamo cusub oo la soo tababaray ay jiraan isla markaana magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso la geyn doono waa labada magaalo ee Siciid Dani sida weyn hubka looga dhigay lagu cadaadiyay culeyskana lagu saaray intaas markay sheeka marayso ciidanka BSF ta Puntland ayaa fadhiga ka kacay ciidamada BSF tu waa ciidamada ugu awoodda badan ee Puntland joogo waana ciidamo tayo badan oo aad qalabkooda ugu dhameystiran yahay waxayna ay ka warhayaan dhagarta Siciid Dani iyo kooxdan calooshadu shaqaystayaasha ah iyo dowladda Imaaraadka Carabta oo rabtaba in la burburiyo Soomaaliya la dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed la colaadiyo xaalad adagna la abuuro inkastoo Siciid Dani iyo Axmed Madoobe KURF tan ay isaga wada mid yihiin oo la doonayo in beelaha kale ee hanaan siyaasadeedkooda ka soo jeeda ciidamada loo adeegsado ayaa hadda waxay u muuqanaysaa in culeyskii ugu xoogana BSF tu ay saarayso durbaba waxa la rabaa hadda ciidankan in la ciribtiro hadda waxa la sheegay ilaa 70 in ay hadda ciidanka KURF ta loo tababaray Siciid Dani la rabana tira aad u badan in tirada la kordhiyo maalmaha soo socdo laakiin BSF ta ayaa ka warheshay dhagarta Siciid Dani iyo dowladda Imaaraadka Carabtu ay doonayaan inay u geystaan shacabka Puntland durba waxa soconaya dhaqdhaqaaqyo xariyaha lagu hayo ciidamadan ayaa la rabaa in la weeraro oo la burburiyo isla markaana hubka laga dhigo intaynan ku xoogeysan deegaanada maamulka Puntland xaaladda siyaasadeed ee Puntland aad ayay u adag tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna gacmaha ayuu ka laabtay Imaaraadku waxa ay wado iyadoo dowladda shisheeye ay si weyn ugu qayla dhaaminayaan xaga dhibaatooyinka dowladda Imaaraadku ay Soomaaliya rabto inay geliso sida Suudaan ayay rabtaa dowladda Imaaraadku in ay ka dhigto Soomaaliya wararka sidoo kale yoolka ugu weyn waxay uu yahay Imaaraadku in macdanta almiskaad iyada ay hesho isla markaana ay say doonto ay ka yeelato lana rabtana inay la xifaaltanto in dowladda Turkiga oo haddaba ku dadaalayso sahdiminta shidaalka waxaana taasi horey ugu carooday wadamo fara badan oo la tilmaamay inay ka mid yihiin dowladaha jacel in la dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed KURF halkay ku dambeeyaan waan arki doonaa farmaajana weli waxa soconaya ololihiisa soo dhaweynta Muqdisho waxa laga dareemayaa ololaha soo dhaweynta Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dadka falanqeeyay siyaasaduna waxay sheegeen in Farmaajo ciidamo aad u badan loo diyaariyay ciidamadaana waxa la tilmaamay inay yihiin kuwa aad u xoogan oo heeb ahaan ka soo jeeda beesha Daawud oo la doonayaba in lagu difaaco Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo miranayaan ayaana la dejin doonaa guud ahaan daawadayaal warkii waad ka daawanayseen xogta dalka saaxiibayaal waan agita daawaday haddii aad janaalkeena xogta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka like share comment waa xaggaaga waa maasantihiin haddii aad intaan la soo gaarteen